degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa dhawaan waxa ka dilaacay cudurkaasi oo ku dhaca xoolaha. Dadka deegaankaas Dila ayaa sheegay in cudurkan dartiis u dhinteen xoolo badan. Dadka deegaanka ayaa sheegay in cudurkan ku dhacay xoolaha ay garaneyn waxa uu yahay iyo xagga uu ka imid, iyagoona carabka ku dhuftay inay weli soo gaadhin dadka arrimahan ku shuqul lahaa. Haddaba dadka deegaankaasi Dila ayaa iyaga oo ka hadlaya arrimahan iyo arrimo kaleba waxa weeye horta xanuun baa ku dhacay xoolaha aan la garanayn markaa waxa weeyaan xoolahaasi muddo 7 maalmood xerada kama dhex galay 7 kadib imika way yar kacdaan laakiin waxba cuntadeedu xitaa afka lugaha meel walba way goday dareer badanna way leedahay carabka ilaa gowsaha ilaa intaasi waxaan ku yiri wax xanuun aad ayaa ku dhacay lugaha xitaa safan baa ka dilaacay markaa imika xoolihii sidii way yar dhaamaan oo way rooyin imika wax badanna way ku tageen oo ari iyo looba leh waxaan halka ka sheegayaa in dadka xoolaha ay ka dhamaadeen markaa xanuun ayaa ka dilaacay aybaas markaa xoolaha afka ka dhaca iyo lugaha iyo cidiyaha ilaahay yar maqashina way dhamaadaan markay caanaha shaqaan bay ku dhimanayaan yaa waxaa lagu sii darana waa maqasha yar waxa la wixii wala xoolo ka wadata may wax talaalama maxaad ugu baaqaysaa hay'adaha wax caawiya iyo dawladda waxaan ugu baaqayaa in dadka miyiga ah ee xoolaha wata in talaal la soo gaaro xoolihii loodii iyo arigii arigana ku dhacay sabab loodana ku dhacay cabukan ku dhacay marka biyana ku si kala qaadayo loona ku dhicin ma jirtay waxaan hay'adaha samafalka ka codsanaynaa inay magalaysa naga soo gaaraan talaal dhaqsa ah inay naga soo gaaraan baa ka rajeynayna ilaahayna ha waafajiyo halkan waxaan sheegay xoolihii oo cudur nagaga dhacay markaa xoolihii way naga daateen aniga waxay ka dhintay sacirmaan neefkii raba dhintay sici u guray reerkuna ku noolaa markaa waxaan u baahannahay in naloo keeno dawooyin tayo leh oo wax noo qabta oo xoolo markuu cudurku naga dhacay aan ku mudno markaa wuxuu qabta dawada waan weyni sidaa awgeed markaa waxaan hay'adaha caalamiga ka doonaynaa inay noo keenaan dawo tayo leh markaa waxa weeye waxaan lahaa 4 neef oo lo ah 4 neef waxaa ka dhintay 3 markaa waxa jira curud kale ilaa xabeeb ama sun markaa waxaan doonaynaa iyadoo saasi ay nagu dhacday 2 neef ay hadhay waxaan doonayaa hay'adaha inay nagu caawiyaan wax dawo tayo leh oo ma garanaysaa xoolaha waxaan ku talaalno ama ku mudno ay nasiyaan si kastaba ha ahaatee cudurkan xoolaha ee ka dilaacay degmada Dila ayaa bulshada deegaankaasi walaac xoogan ka muujiyeen oo ay sheegeen inay ka baqayaan in cudurkani faafo isla markaasna uu gaadho xoolaha kale iyagoona markaasina baaq dheer u diray wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adaha arrimahani ka shaqeeya inay soo gaadhaan degmada Dila ay sheegeen inay u baahan yihiin gurma degdeg ah si loo badbaadiyo xoolaha kale. Wali Abdi Casiis Asad Muuse, telefishinka madaxa bannaan ee Bus TV magaalada Boorama.